gudniinka fircooniga ayaa ah caado dhaqameed looga dhaqmo wadamo badan oo caalamka ka mid ah sida Soomaaliya. Jubbalandna waxa ay ka mid tahay deegaanada gabdhaha la gudo oo walow la sheego in gudniinka fircooniga uu sababo dhibaatooyin caafimaad oo soo gaara gabdhaha marka la gudo. Haddaba iyadoo taasi laga duulayo ayaa wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay qabatay kulan wada tashi ah oo looga wada munaashaqoonayo hindisa sharciyeedka gudniinka fircooniga. Madasha oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda, qaar ka mid ah haweenka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, culumaa u diin iyo marti sharaf kale ayaa lagu gorfeeyay qodobo ka mid ah nuqul qoraaleed ay wasaaraddu soo diyaarisay si ay afkaartooda ugu biiriyaan. Agaasimaha jinsiga iyo arrimaha qoyska Maxamed Xuseen Maxamed ayaa sheegay in sida kaliya ay gudniinka fircooniga ah lagu joojin karo ay tahay in la helo sharci lagaga hortago. wax kasta oo xun oo wax lagu joojin karo waa kale in la helo sharci lagaga duulaya. waayo waxaan qabanay kulamo fara badan, culumaan la kulannay, waxaan ka soo saarnay awaamir fatwa in gudniinka fircooniga uu dhibaato ba'an ummaddu ku haya. horaan waxaan filayaa waa qariib in laga hadlo barnaamijkaas iyo sharciga nooca, laakiin wax ka hadla jiray ama in badan focus ama ahmiyad saari jiray ma jirin. hadda waxaa jira inay dad u dhintaan, xeer ilaalinta la keena, dhibaatooyin lagala kulmo, lusku qabsado. meelo fara badan way u dhintaan, halkan magaaladan joognay ka dhacdaa, si qarsoodiya loo sameeyaa, waad ogtihiin. marka waxaan garwaaqsanay inaan at least ka sameeyno shuruuc looga hortagayo dhaqankaas. ciddii sameysana hadhowti lagula xisaabtami kara, ciddii kaalmaysa lagula xisaabtami kara, gabdhihiina ay ku heli karaan badbaado rasmi ah. Zainab Rashid Cige oo ah agaasimaha guud ee xuquuqul insaanka Jubbaland ayaa dhankeeda tilmaantay haddii ay bulshada hal dhinac uga soo wada jeesato jaridda xubinta taranka ee gabdhaha in la xakameyn karo arrintan. maadaama atiin bulshada qaybihi kala duwanaa waxay noo tahay muhiim inaad nagala qayb qaadataan, wixii aan ku saxsanayna nagu taageertaan, wixii aan ku qaldanayna aad naga reebtaan. idinkoo waliba aan xagga waalidiinta aan aad iyo wadaadada dhaqanka wixii waxa la yiraahdaa ragna u kaco rabbina aqbalo way meel maraan inaydun si buuxda noogala qayb qaadataan rayigiina iyo gudniinka fircooniga sidii looga joojin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogaanba. dhibaatooyinka koowaad ee gabdhaha la soo gudboonaado marka la gudo ayaa waxaa ka mid ah dhiigbax iyo caabuq ka dhasha gudniinka. marka laga soo tago midaasi waxaa jira dhibaatooyin mustaqbalka fog oo ay kala kulmaan gudniinka. Firdowsa Cali Faarax ayaa ka sheekeynayso. waxaa jira waxyaalo badan oo gudniinka fircooniga uu keeno. waxaa ka mid ah in ay maxaladahay gabadha saacada ay maxaladahay monthly periodka ay galayso ay ku xanuunsato, taasoo sababaysa in gabadhii ay shaqadeeda ay saadin ama waxbarashadeeda ay toos u wadanin. midda kale waxaa kale oo jirto in ay hooyada markay dhalayso oo kale ay dhiigbax fara badan ay la kulanto maxaladahay ama complications oo sababaya gudniinka fircooniga. faa'iido darradiisa uma mar walba badan ee bulshada waxaan ku gabaabinaynaa mar walba inay sida diinteena ay sheegtay ee gabdhaha ay noogu gudaan. Macallin Xasan Haruun oo ka mid ah culumaa u diinka magaalada Kismaayo ayaan weydiiyay waxa ay diintu ka qabto gudniinka gabdhaha. dhanka diinta yacni hadii la yiraahdo uu kulay shaqo uu kuleeyahay ma jirto. waxgaradka Soomaaliyeed oo iyagu in badan xog ogaal u ah arrintan dhaqanka la xiriirta ayaa ka soo horjeestay, waxayna sheegeen inaan xilligan loo baahnayn oo laga soo gudbay. waa kan Xaashi Jaamac Cali oo ka mid ah bahda dhaqanka. in arrintaas waxay ahayd arrin laga soo gudbay, arrin maxaan ku dhahaay hay'ad gudniinka fircooniga oo dadka lagu qalanayay, mashruuc buu ahaa lacag lagu qaadanayay, wuxuu ahaa caado dhaqameed maxaan ku dhahaay oo lagu raali gelinayay ninka gabadha guursanaya. waxaasoo dhanna waa laga soo gudbay oo duni casri ah oo diintii faaftay oo reer magaalnimadii iyo ilbaxnimadii faaftay oo wax la bartay baa la joogaa. marka waxaan ku wacyigelinayaa in maxaan ku dhahaay arrintaas la joojiyo. si kastaba iyadoo aqoonta loo leeyahay dhibaatada caadadan ay korortay ayaa haddana waxaa jira waalidiin tiro badan oo gabdhahooda u guda sida khaldan maadaama aysan weli jirin sharciyo adag oo ciqaab lagu muteysan karo marka gabar lagu xadgudbo. Abdullahi Hussein Kilas, telefishinka caalamiga Ariel, Kiss.
Kismaayo.